waxaa ku soo haray lafaan inta waxa la isku yiraahdaa rib cage waxa la isku yiraahdaa rib cage qaab dhismeedahan waxay u eg tahay sida saabka dhiisha caanaha lagu qaado kale wana qana Soomaa dhiisha caanaha lagu shubo bahal waxa la geliyaa saab ee Soomaa qaabkii u sameeysan tahay kale ayuu u sameeysan yahay tusaalahan dhiisha marka la sameeynayo kale saabkeeda marka la sameeynayo waxa laga tusaale qaatay justiga qofka rib cage sidii u sameeysan yihiin kale ayaa tusaale laga qaatay lafahan oo sameey rib cage-ka 24 waa 12 oo midig jirta right side ah iyo 12 bidix jirta lafaas 24 kaasi qayb daba gadaal waxay kaga dhagan yihiin vertebral column gadaal maxay kaga dhagan yihiin soo ma jeed vertebral column-ka ayay kaga dhagan yihiin qaybta dorsalka gadaal waxa loo yaqaan markaa dorsal ayaa la anatomical term ahaan qaybta hore ee ventralkan waxay kaga dhagan yihiin sternumka soo qaybta hore waxay kaga dhagan yihiin sternumka qaybta gadaal waxay kaga dhagan yihiin vertebral column-ka ay kaga dhagan yihiin sternumka guud ahaan waxa loo qaybiyaa saddex qaybtan waxa loo yaqaanaa manubrium qaybtan waxa loo yaqaanaa manubrium ayaa loo yaqaanaa qaybtan waxa waa external body allah kana waa xiphoid process qaybtan waxa waa xiphoid process this is the external body qaybtan waxa waa manubrium ka aan tirina marka lafaha guud ahaan ribiska sidoo kale waxa loo kala saaray saddex qayb qaar loo yaqaano true ribs iyo qaar loo yaqaano false ribs iyo qaar loo yaqaano floating ribs aan xisaabina marka lafahan kuwa loo yaqaano true ribs kuwa false ribs ah kuwa floating ah true ribs waxa waaye waa ilaa 7 laf waay waxaana guud ahaan waxa loo qaybiyaa saddex Soomaa true ribs false ribs iyo floating true ribs waxa waaye waa 7 false ribs waxa waaye waa 3 floating ribs waxa waaye 2 waay aan isla fiirino marka true ribs waan tirina marka true ribs waxaana 7 Soomaa aan xisaabino 1 midan waxay ku taalaa kalxanta hoosteeda 1 2 3 4 5 6 7 todobadaas waxa loo yaqaanaa true ribs why true ribs loo dhahay sabab true ribs loo dhahay waxay tahay iyagu waxay toos ugu dhagan yihiin sternumka waxay toos ugu dhagan yihiin sternumka that is why marka sababta loo dhahay true ribs waxa waaye waa sidaas waaye qaybtan waxay kaga dhagan sternumka gadaalna waxay kaga dhagan vertebral column saddexda kale ee soo hartay oo ah ribka 8aad 9aad iyo 10aad meelna kuma dhagan iyaga ayaa isku dhagay maxaa loo yaqaan iyagana sidoo kale false ribs loo yaqaan waa 8aad 9aad iyo 10aad waxa ku soo haray 11 iyo 12 oo kuwaane 11 iyo 12 labadan hoos waa soo ma jeed meel may ku dhagan yihiin floating means kaligooda iska sabaynayo iska baashaalay waxa loo yaqaan floating meelna kuma dhagana labadan waa midda 9aad maya midda 11aad imida 12aad way la socotaan hadda qaarkiina waxa ay dhahdaan qaarkiina way la socotaan waa 11aad iyo 12aad waxa loo yaqaan floating this waxa waa cartilage waa arjawa sababtu xitaa muuqaalahan way ka duwan tahay lafta Soomaa arjawadan waa costal cartilage loo yaqaan waxay isku xirtaa sternumka ay waxay ku xirtaa ribiska feeraha iyo sternumka ay isku xirtaa waxa loo yaqaan costal cartilage ayaa loo yaqaan okay haddaan hore u sii socono qaybtan waxa loo yaqaan pelvis waa miskihi waxa loo yaqaan pelvis waay haddaad muuqaalka wax badan ka faa'iiday subscribe sar walaal si aad ula socoto casharada taxanaha caafimaadka oo aan maalin walba soo dhigo page-kaygan Dr. Jawhari Official aad u maasan tahay la wadaag asxaabtaada intaan muuqaalkan oo kale aan dib kaga kulmayno sida iyo nabadgelyo